ma isweydiisay sababta dadka qaar markay hadlaan loo wada dhegeysto qaarka kalena la iska ina wada tiro? Ma waxay u dhasheen hogaamin mise waa wax la barto? Haddii aad tahay maamule shirkad, waalid guriga jooga, mise arday doonaya inuu saameyn yeesho, videogan waa kaaga. Maanta waxaan ku barayaa 7 sir oo ay isticmaalaan hogaamiyaasha dunida beddelay. Haddii aad qodobka 7aad si dhab ah aad u fahantana, weliga dadka kuguma raaci doonaan xoog ee waxay kugu raaci doonaan jacayl iyo ixtiraam. Qodobka 1, tusaale u noqo. Hogaamintu ma ahan wax aad afka ka tidhaahdo, waa wax aad gacmahaaga ku qabato. Haddii aad rabto inay kooxdaadu shaqeeyaan 8 saacadood, waa inaad timaadaa ka hor intaysan bilaabin hawshooda. Tusaale, Nelson Mandela ma uusan dhihin dadkiisa nabadda jeclaada, laakiin isaga ayaa iska cafiyay dadkii xiray 27 sano. Sidaas darteed waxay ku qasbanaadeen inay qaataan nabadda. Qodobka 2, dhegeysiga firfircoon. Hogaamiyaha liita wuxuu rabaa inuu asaga hadlo mar walba, laakiin hogaamiyaha caqli badan wuxuu dhegeystaa wax aanan la dhihin. Markaad qof aad dhegeysato, waxaad siinaysaa qiimo. Markuu dareemo qofka in la siiyay qiimo, wuxuu ku siinayaa 100% dadaalkiisa. Qodobka 3, go'aan qaadasho. Dadku waxay raacaan qofka leh jihada cad, xitaa haddii go'aanku yahay mid adag. Qaado mas'uuliyadda. Inaad qaadato go'aan khaldan oo aad cashar ka barato ayaa ka fiican inaad meel iska taagnaato adiga oo wareersan. Qodobka 4, dhisidda kalsoonida. Kalsoonidu waa sidii dhalada, haddii ay mar dillaacdo, marna uma noqonayso sidii hore. Noqo qof hadalkiisu mid yahay. Tusaale, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam cadowgiisii waxay ugu wici jireen al-aamin, oo micnaheedu tahay kii lagu kalsoonaa. Taasina waa tan ka dhigtay hogaamiyihii ugu saameynta badnaa dunida. Qodobka 5, dhiirigelinta dadka. Hogaamiyaha weyn ma abuuro followers, wuxuu abuuraa leaders. Ha ka cabsanin inay kooxdaada ay ka fiicnaato, waayo guushoodu waa guushaada. Qodobka 6, is-hoosaysiin. Inaad madax tahay micnaheedu ma ahan inaad dadka ka sareyso. Hogaamiyaha dhabta ahi waa kan ugu adeega badan kooxdiisa. Haddii guul la gaaro, dhibcaha sii kooxda. Haddii ay guuldaro timaadana, adiga farta isku fiiq. Qodobka 7, aragtida fog. Tani waa sirta ugu weyn. Waa inaad aragtaa wax aanay arkin weli dadka kale. Tusaale, Martin Luther wuxuu lahaa riyo iyo aragti fog oo ku saabsan cadaaladda, taasi oo dhiirigelisay malaayiin qof ilaa iyo maanta. Gabagabadii iyo gunaanadkii, hogaamintu maahan hibo dadka qaar keliya la siiyo, ee waa muruq aad dhisi karto maalin walba. Su'aal, 7 qodob keebaa kugu adag inaad samayso? Igu soo qor qaybta commentiga, waan kaaga soo jawaabi doonaa. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe dheh si aanay ku dhaafin muuqaalada xiga. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga, waxaan ku leeyahay guuleyso.